annagoo rasuulka la joogna calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu arkay dad meel ku urursan markaasuu wuxuu yidhi war halkaa maxaa ka jira dadku ku urursan yihiin rasuulka ilaahay oo xabaal bay qodayaan markaasuu yidhi yaa xabaal bay qodayaan kabaha intuu iladay ayuu dhaqaaqay nebigu isagoo dheeraynaya waanu gaari kari weynayoo annaguna waa la laba lixaadsanay oo waa daba soconnay wuxuu lixaadsado oo rasuulku tallaabsado meeshii qabriga laga qodayay ayuu tegay calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku qabrigii arkay oo la qodayo waa argagax waa isbedelay ilmaa indhihiisa ka soo daadatay calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku uu kadaloobsaday albaraa ibni caazib oo xadiiska warinaya wuxuu yidhi waan daba socday intaan soo wareegay ayaan halkaa hortiisa soo fadhiistay bal anigoo eegaya rasuulka waxa uu odhan doono rasuulku waa ilmeynaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku nagu soo jeestay markuu cabbaar fooraray oo ilmadii ka soo daadatay dhulka ay ku dhibcayso garhkiisii ka dhibcayso ayuu kor noo soo eegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ikhwaanii istacidduu lihaada alyowm walaalahayow maalinkan oo kale u diyaargarooba nin walooba xabaal baa ku sugaysee maalinkaasoo kale u diyaargarooba nebigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh